يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد إخوة الكرام وعن وحي رسالة سوتشيدنا بإذن الله الكريم موضوع الخطبة موضوع دي وحن بارسناي مواضيع فربضان إلهي سبحانه وتعالى وحاو أبوري نلكو حسوسيي خطبة لحديدة إلهي ويري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني يا إنس ما أبورين إلا إن عباد اللي مادان عابدان بانوا أبورا إلهي سبحانه وتعالى وعاكو سغنها بيتك عبادته وإلهي داعدي سلوغو تلقلي إن لقلنا ولي داعد إلهي وحنادي آد سوق بورهنا إن عبسد إلهي نفتي ديتين نبا cabsida ilaahay uu baan isku boorinaynaa waxaa naga dambeeya awqaaddii khudbada lagu tiriyey oo aan aad iyo aad u xusiisan doono waxaan adduunyada ku samaynay daartan hadda aan joogno daaru dunya waa daarul quruur waa kadada daarteedii iyo asxaab badan baa ku kadsoomaysa in badanna waa ku baraarugsan tahay maadaama adduunyo ay tahay aakhirana naga dambayso adduunyo waxaad ku camal fashana aakhiro aad la tegayso maanta waxaa wanaagsan inaan fiirino waxaan beri la tegi lahayn waxaa la xisaabiyaa intaad tan joogta naftaada inta aan lagu xisaabin oo aan lagu horgeynin waxa la wixii adduunka aad ku samaysay aan lagu hortaagin ayadoo kitaaba aan lagu dhihin aqri wixii wanaagsanaayood la timid ilaahay waxba kaa dayici maayo ina allaha laa yadlimu mithqaala darah wa in taku xasanatan yudaacifha ilaahay addoonkiisa kama dulmiyo xasana oo la yimid darre midqaalkeedoo kaleba ha ahaatee haddii ay xasano tahay waxa uu la yimid midqaalu darraba ha ahaatee mudaacaf baa looga dhigayaa hadduu uu dembi la yimid wax alla wuxuu la yimid maktuub weeye waa qoran yihiin dembigii ama ilaah baa kaa cafinaya oo waxaa lagaaga dahirayaa bicafwin min allaah ama waa lagu ciqaabayaa ciqaabkaas ama adduunyada lagugu qabanayaa ama aakhira lagugu kaydinayaa marka intaan lagu xisaabin ka hor inaad xisaabtanto taas ayaa muhim ah waxaan ku sugannahay maalintii khayrka badneed ee jumcada ahayd waa maalin aad iyo aad loogu asteeyey daacaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kala gedisan daacooyinka maalmaha kale aan lala imaan karin ee maalintaa kaliya lala imaan karo waxaa ka mid a salaada jumcadoon hadda dukanaynaa ka mid ah salaada jumcada waxaa la siiyey ummaddan ummatul muxamadiya ilaahay siiye subxaanahu wa tacaala maalintaana ummaddan baa lagu fadilay
ummadihii naga horreeya waa diideen yuhuud baa loo bandhigay inay u noqoto ciiddii usbuucooda waa diideenoo waxay doorteen sabti nasaara loo bandhigoo waa diideenoo axad bay doorteen ummaddan baa ilaahay siiyey oo cardi loogu sameeyo aqbaleen maalinkani maalmihii kore waa ka fadilan yahay maalmaha kalena asagay taabic u yihiin alyawmu lana wa gaddan lilyahuud wa bacda gaddin linnasaara maalintan annakaa iskale waa martiqaadkeennii maalinka ku xigana yuhuud baa iskale waa sabti maalinta kalena waxaa iskale nasaara baa iskale maalinkan marka jumcada ah waa ciidul usbuuc muslimiinta oo dhan meel kastay joogaan waa ciidayaan waxay raadinahayaan dalabaadka ilaahay dhexdeeda yeela maalintan waxaa ku sugan saacad ducada la aqbalo oo maalinta dhexdeeda iyo habeenka dhexdiisa lagu qariyey oo qofkii daaca ilaahay asagoo u taagan waafaqa ilaahay uu aqbalahayo mar haddii ilaahay ku aqbalana weligaa ku cadaabi maayo mar haddii raxmadda ilaahay kugu dhacdo qabuul aad la kulanto ilaahay marna ku cadaabi maayo cadaabkiisa xor baad ka tahay marka saacad la isxoreeya ayaa ku sugan jumcada iyo habeenkeeda maalinka jumcada iyo habeenkaas waxa weeye waxaa ku sugan saacatul ijaaba saacad yar weeye aad u yar qofkii dalba oo dalba waa helayaa daacada ilaahay adoo ku jira ha ku soo waafaqdo adoo macaasi ku jira hadday ku soo waafaqdo saacadaha kale dembigaad ku jirtay haddii aad gasho saacaddaas dembigaad ku jirtaa dembi weyn waayo saacaddii wanaagsaneed oo qiimaha badneed yaa ilaahay macaasidiisii ku baabi'isoo la qaabish marka maalintaasoo dhan maadaama aada kala oqon meelay uga jirta saacadu ilaahay daacadiisa lagu maasheeyaa wardigaa lagu maasheeyaa tasbiixi baa lagu maasheeyaa taxmiid baa lagu maasheeyaa taqdiis rabbaaniya baa lagu maasheeyaa tawxiid baa lagu maasheeyaa dikriga ilaahay carabkaagu inuusan ka qoyanaa muhima nin baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu yidhi ii dardaaran ilaahay rasuulkiiso wuxuu ku yidhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah carabkaagu yuuna ka qalalin carabkaagu yuuna ka zuulin inuu ilaahay dikrigiisa ka qoyan yahay dikriga ilaahay carabkaaga ha ka qoynaada buu yidhi yacnii inaad laasimto weeye laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah subxaana allah inaad laasimto alxamdu lilah inaad laasimto allahu akbar wahaakada waa dikrigii ilaahay dikriga ilaahay waqtiga kugu dhaafaya awqaadda oo dhan waa kaaga qaalisanya dadkii waa wanaagsanaayo ahlullaahiga ahaa inaad tiraahdo dahab isii iyo inaad tiraahdo waqti isii waxay jeclaayeen inaad tiraahdo dahab isii ay jeclaayeen dahabku waxa weeye waa waxa ugu qaalisan lacagaha marka lacagta dahabka inaad weydiisato iyo inaad waqti isii tiraa waxa u qaalisaneed oo u sahlan waxaa u sahlaneed lacag isii inaad tiraahdo markaasuu siinaya asagoo dikrigiisa iska wata wuxuu qaatay nebiga dardaarankiisa calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah carabkaagu yuuna ka zuulin qoynaasho oo uu ka qoyan yahay dikriga ilaahay marka tasbiixdaasoo wataa laa ilaaha ila allah buu wataa kaliya markaasoo asagoon joojinoo wax bixinayaa oo sadaqo la baxaya waqtigiisuna berri wuxuu soo maraa asagoo saas u camiran
waqtigoo camiran uu soo maraya saacadda digrigii ilaahay aad ku tabsiiday kuu keenaysaa saacaddii badaalada aad ku jirtana iyadoo maran bay ku imaanaysaa saacaddii dembi aad ka buuxisa dembigii bay kuu keenaysaa waqti walba waxaad ku tabsiida buu kuula imaanayaa waqtigu dahabka waa ka qaalisan yahay waayo dahabka waad hoo haleeshataa oo waa raadsataa waasaa soo helaysaa laakiin waqtigii kaa taga soo heli maysid saakay saacaddii ku dhaaftay iyo 100 sano ka bacdi saacadda soo socota saacadda saaka ku dhaafta aad iyo aad ku qaalisan waxa ku dhow midda 100 sano ka bacdi ku imaanaysa tii saaka ku dhaaftay ilaahay hortiisa ku soo maraysaa wixii ay kugu soo martay kugu soo maraysaa marka maadaama aad soo haleesho karin waa waqti qaali ah ka faa'iideyso oo yeesho digri ilaahay maahana wax kala kugu dhaafin sidaas nabigu ku yiri saxaabiga la yazaalu lisaanuka radban min dhikrillah arabkaagu yuuna ka zuulin inuu ka qoyan yahay digriga ilaahay waa la isku imtixaanayaa shaydaanku waa ka duuflaaninayaa inaad ilaahay agtiisa darajo ka gaarto ku diidayaa dadku waa kugu ceebaynayaa wardi buu isaga jiraa wardigaasa ummadda ilaa shaydaanku hadduu asxaab helo asxaabtiisa soo adeegsanayaa waa kugu ceebinayaan waa kugu dhibayaan waa kugu xaqirayaan adigu ilaahay agtiisa wax geyso ninkii maalintaas xaqirma nin xaqiran ah laakiin ninka maanta nin la dhihi jiray Jurayj radiyallahu anhu wa ardaah wuxuu ka mid ahaa dadkii wanaagsanaayo hore waxa ka qiseeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga ka qiseeyay wuxuu yiri Jurayj wuxuu ahaa nin weli ah oo ka mid ah ummadihii hore wuxuu ahaa markii hore ganacsado ahaa xoolihii baa ka baaba'ay markaas wuxuu yiri inta fakiray ganacsi aan baaba'aynan aqaanaa buu yiri waa daacada ilaahay markaasuu magaaladii inta ka baxay oo meel cidla wuxuu ka dhistay dhoobo yar sawmaca yar oo dhistay meeshaasuu ku cibaadaystaahu ilaahay ku xusaa dadka qofkii u taga oo xanuunsan oo ku soo tufaa waa caafimaada ummaddiyo iska sii socotaba ay arkeen dadkii maamulka meesha ka ahaa suldaan jaa'iraha ka ahaa marka meesha uu joogo madax markay arkeen ummaddii inay ninka iska daba shubtay meesha ka dhistay dhoobada oo dadkiiba dhaqtar aysan u baahayn oo ilaahay ula jiro qofku gacanta mariyo ayaa qoladii maamulka ah dawladdii waxay dhaheen ninkaas yaa dadka ka soo reeba oo dadka yacni ku dira islaam baa waxay tiri magaalada laga yaqiinay oo quruxley ahayd yaa waxay tiri anaa dadka ka soo reebaya ka soo reeb baa lay waa u tagtay markaasay waxay tiri kaala iga zinaysa bay tiri waa ka diiday innii akhaafu llaaha rabba alcaalamiin buu yidhi ilaaha caalamiinta abuuran ka cabsanayaa buu yidhi si ay uga rumayda ballankii yay magaalada mid ari ka raacay oo ari sii waday ka daba tagtay asay tiri iga zinayso kii yaa ka zinaystay waa uu rawday markay dhashay wiil bay dhashay wiilkan yaa kaa dhalaa layidhi aasay tiri Jurayj ninka soomacadaas jooga iga dhalay tiri markaasaa inta dawladdu ku firxatay meeshiina laga dumiyey asagiina la dilay oo la tumay waa ogaanaa la yidhi waxaad meesha ugu jirta inaad gabdhaha halayda inaad ugu jirta waa ognahaa la yidhi markaasuu yidhi ii kaasha wax yar isiiya buu yidhi 2 ragcoo sunna aan dukadee waa loo kaasho 2 ragcoo sunna buu dukadee wiilkii ii keena buu yidhi
wiilkii dhasho zinada ku dhashaa loo keena fartu inta caloosha saas uga midow yidhi man abuuka aabbaha waayo markaasuu yidhi aabbahay arraaci waa kii arga jira buu yidhi waa midkii arga jira buu yidhi waa ilmagii hadda dhashay markaasay fadeexowday dowladdii waxay ogaadeen inuusan dhalina mid kala dhalay ee islaamtaani ee been sheegaydo markaasay dhaheen waxaan kuu dhisaynaa meeshii aan kaa burburina dahab aan kaaga dhisaynaaye dheh maya dahab ha iga dhisinina dhoobadaydii iga dhisa weyy dhoobadii ay iga dhisneed iga dhisa halkii buu isaga cibaadaysan jiray halkii buu daacadiisii la galay marka shaydaanku wuxuu u adeegsanayaa dadkaasoo kale dad doonaya inay fasaadiyaan u adeegsanayaa daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada fiiri atbaacdoodana fiiri adduunka sida loogu dhibay iyo aakhiro darajaday ka gaarayaan fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunka intuu u soo saara waxaa ugu khayr badnaa nebigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam waxaana ugu dhib badnaa oo diinka dartii loo dhibay nebigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam salaadda hadda khudbada ka horraysay aayadda jumco walba lagu akhriyo ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay ku sallinayaan oo aysan marna joojinayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee dadka iimaanka lahoo rumeeyey ilaah iyo rasuulkow aduunkuna ku salliyo salaamaa la leeyahay ilaahay khaaliqul kownka ahaa oo makhluuqaadkao dhan abuuray aan salliga ka joojinaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam malaa'igta ilaahay uu dejiya samaawaadka 7 samaa laga sarraysaa ilaahay wuxuu ku camiray malaa'igtuu ku camiray maqaam ma jiro wejiga saas loo dhigaa ilaa malagaa ku sujuudsan baa samaawaadka malaa'igta buuxdaa waxay leeyihiin hogaamiyeyaal sida ardadu hogaamiyeyaal u leedahay ardadana ilaahay 5 buu hogaamiyeyaal uga dhigay samaawaadkana 10 baa hogaaminaysa oo malaa'igta madax u ah oo mukallafiinta inay bartaan waajib looga dhigay 10kaa waxaa madax u ah jibriil isagaa ra'iis u ah hogaamiyaha kor yacni hogaaminaya malaa'igta wuxuu ahaa jibriil buu ahaa ardadana ilaahay wuxuu madax uga dhigay nebigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam iyo 4 rusushii ka mid ahoo ku xigta 5toodaasaa ululcasmi la ysku yidhaahdaa muxamedun ibraahiimu muusaa kaliimuhu fa ciisaa fa nuuxun hum ululcasmi faclan buu yidhi 5tii ambiyada ilaahay ugu dhibka badneed oo adduunka lagu dhibay oo dhibaatada iyo qaxarka la kulmeen yaa ilaahay wuxuu ka dhiga hogaamiyeyaalkii ardada waxaa hogaamiye looga dhiga khayru khalqillaahi baa looga dhiga darajaadkoodu waa ku xigaan waa isku xigxigaan xagga darajada waxaa nebigeenna ku xiga calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ibraahim baa ku xiga waxaa ku xiga darajada 3aada nebiyullaahi muuse waxaa ku xiga nebiyullaahi ciise waxaa ku xiga nebiyullaahi nuux 5taasaa ululcasmi la yidhaahdaa waa 5tii ambiyada ilaahay ugu sabarka badneed oo dhib kastoo loo geysta ku sabri jiray wasbir kamaa sabara ululcasmi
وكوي النبي قال له عليه الصلاة والسلام رجي قصدك وصاحبك هابوها وحي هكسايان آخرة إلى هاي الديارية أوغايان كوا كلنا أوغايان ولا أوغايسيي لكن الأجر بقدر التعب انت أدبوتوتا أجرك أقول لك أنا يا انت أتصبرتاد واحد هلي سمعية إلهي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي كوا كعب سدو معي قوديه كوا سمفليال كابو معي قوديه كوا صبروا معي قوديه إن الله مع الصابرين كوا صبروا معي قوديه إلهي سبحانه وتعالى أرض مركة أيكو الله أفصديه قامين أيان إلهي رسولك سوى غائد الأمة أمد غائد كيدي ويه هو قاميه هيدي ويه مركز مالين قيامة مركز اللي يمادو رسولك أقو أتباع بدن أقو أمد بدن والنبي عليه الصلاة والسلام رسولك كلوا قوضي أتباع ذودي لكن رسول كان أتباع دي سمقوا إيسا إلى قيامه كرعه ساسا لو أوغياه مساجده ودحل كيسي ساسا قرآن كاللو آخرين إياه ساسا دين كاللو آخرين إياه ودحل كيسي وميراث كيسي الدنيا لقما دحل النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا كوي كفد نوبي وحا عبر الله سوغا تغارون ولقد دير نبي الله موسى يا نبي الله هارون أيو كفد نوبي إلهي مال بو كفرقا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة شوف هذه الآية إلهي وحو يرنك قارون ليرادو نبي موسى قوم كيسيو كميدا هابوير مركاسو كوكبري وكوكبري بوير فبغى عليهم بوير بغي يا ظلمي يا بلايو أي قوم كيكولا كاي وحانا سينا إلهي مال فريالك قنفلدا ماشا بقارada iyo tukaamada iyo dhulka toban nin oo dadkii waaweynaayo waqtiga jiray culays ku noqonaysa toban nin aan qaadi karin toban nin afrayaalkaas la kici karin maalka intaas la agaan siinaa buu maalkaasi hadda ma badbaadiyo ma una badbaadin muxuu dhaxla kibir buu ku waxeeyay waa qooqay markuu qooqo shaafeertamana isaga iyo wax alla wuxuu maal tabcada dhulka la jaray فخسفنا به وبداره الأرض بوير إلهي سبحانه وتعالى أساق يقريه وويناي ودسي أن نقول كلا جرنا بوير هالمر ولهذا واسي سعدا قارون سلك مجارين قيامهم مركو دعو قعرق دعيا واسيق بالرعي غفك عيالك كدعي وأن حرق كحرين هذا جبي سوكم دعو جبي يدا يسودي به marka saasoo u sii gabi raacaya wali ma uusa gaarin meesha loogu tala galay dhulkan ilaah baa nala celinaya maahane badda aad u jeedaan oo kala ka hoosayda toddoba ardo iskor saaran weeye sida samadu isu kor saarantaa toddoba yaa ardaduna toddoba tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa nala celinaya maahane mararka gabal markii dunuub waaweyn lagu sameeyo xishood iyo khajli daraadeed ayay ruxmaysaa waa aragtay xagga dhulgariir baa ka dhacay xagga dhulgariir baa ka dhacay waxyaabaha dhulgariirka sababa oo dhulku yacni xataa oo la gilgisho zinada ka mid ah waa dunuubta waaweyn zinada ka mid ah waxa ka mid ah qatliga qofka muslimka la dilaa ka mid ah بغير حق لو ديلو حق در لو ديلو ايا كميدا وحيابها ظلميغا
oo noocaas ah zalzaladu way ka timaadaa dhulku waa ruxmin markaasaa mararka gabal baddaasi hoos ka imaanaysaa baddaas hoos ka imaanaysa mararka gabalna ilaahay amar sii maayo inay soo burqato laakiin haddii amar la siiyo waa soo burqanaysaa ascir noqonaysaa sidii markii fircawn iyo qoladiisii la halaagahayay markii la halaagayay nabiyullaahi nuux waa kii markii dhibkii ku batay ayaa waxaa la yidhi ummaddii dhibeen doon samaysa baa la yidhi markaasuu doontii samaystay doonta ku koriyaa la yidhi wax alla wixii ku raacsan markaasuu doontaa ku aruuriyey wax alla wixii wiilkiisii waa kii diida kaalayuu yidhi war soo gal doonta war dhulku biyow noqonayaaye war dhulka biyaa ka imaanaya korna biyaa ka imaanaya ee soo gal markaasuu ka diiday sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa buu yidhi haddii biyo yimaadaan waxaan u dulmi doonaa buur dhakadeedaan tegi doonaa biyaha iga ilaalido buu yidhi muxuu og yahaba waxba ma oga markaasuu asna leeyaha soo gal markaas buu ilaahay baryo wuxuu ilaahu kan ahalkaygu ka mid yahay markaasaa ilaahay yidhi innahu laysa min ahlika innahu camalun ghayru saalix kan iska dhaaf yidhi adiga ahalkaaga ka mid maahane xagga iska dhig buu yidhi kan doontiisii oo ka shiraacay markaasaa dhulka la yidhi biyaa soo daa samadana keen baa la yidhi faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir biyihii baa marka kulmay kuwii kor ka yimid iyo kuwii hoose adduunkoo dhammu wuxuu noqday cir biyo saa u ducoso ayuu noqday waxaa ka badbaaday wixii doonta nebi nuux la raacay ka badbaaday abu haani waa ta la yidhaahdaa aabbihii labaad ee banu aadamka weeye wixii bahal iyo dunyo wuxuu korshay adduunka ku faafa markii kadib sinfi walba labuu ka rartay bahallada xataa labuu ka rartay labo nin iyo naag markaasuu ku koriyey ilaahay bahashaasuu ku koriyey aan biyaha kor laga keenay iyo kuwa hoos laga keena marna aysan ridaynin oo iska dhex socoto iska mushaaxida makhluuqaasina ku nool yahay dhibaatada uu soo mara fiiri dhibka uu la kulmay fiiri ilaahay sidaas buu u imtixaanay rususha markaasay ku baaseen ay ku guulaysteen guushii ay gaareen yaa maalinta qiyaame yay makhluuqa oo dhan uga sarreeyaan makhluuq oo dhan bay uga sarreeyaan daartaani marka waa daarul imtixaan waxa qur'aanka kariimka naloo leeyahay aqriya qur'aanku waa axkaam iyo qisas iyo mawaacid qisasku wuxuu kaaga sheekaynayaa ummadihii hore iyo sidii loo halaagay iyo waxay dembi sameeyeen buu kaaga sheekaynayaa markaasaad ku cibro qaadanaysaa caqli baad ku yeelanaysaa cilmi baad ku yeelanaysaa waad camal falaysaa koodii ay ku halaagsadeenna waa ka dhowrsanaysaa waxaan marka isfaraynaa ilaahay cabsidiisa waxaan isfaraynaa waqtigan oo kale salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waa fursa dahabiya waa laga faa'iidaystaa maalinkan oo kaleeto waxaa laga faa'iidaystaa salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad rabta nebigu inuu ku jeclaado ama maxabbadiisa qalbigaaga la geliyo waxaad laasimtaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ama nasri ha noqdo ama nadmi ha noqdo tix inuu noqdo gabay noqdo iyo inuu satix noqon labaduba waa isla midkaad kula timaado mid kastood kula timaado nebigu waa ku ajiibaya nebigu ma ahan mayd meel yaalla ma ahan ilaahay ruuxdiisii waa siiyey waana la ku imtixaana qabdigiisii imtixaan u ahaa asxaabta xataa lagu imtixaana la joogtay isaga waayo waxay u qaybsameen saddex markii nebigaa la oofsada la yidhi
qola waa shib bay dhaheen oo hadalaaba laga waayay qolana waxay dhaheen qofkii yiraahda nabiga la oofsaday surkaas laga jarahaya sidii Sayyid Umar uu ku yiri asxaabta qolana yaqiinta qalbigooda saareed iyo martabada ilaahay gaarsiiyay yaysan waxba iska bedelin sida Abu Bakar baa hogaaminay markii nabiga la oofsaday wuxuu jira sunxi buu jira magaalada awaalideeda koraa waa yimid oo nabiga waa la oofsaday markaas oo ugu gala gurigii gabadhiisa Aisha maradu ka soo rogo waa arkay labada indhood dhexdooda ka dhunkaday markaas uu geerida dhima leh waa geeriyo ta laba jeer ilaahay ku dili maayo markaas uu masaajidka galay Sayyid Umar minbarkii taagan oo seefti la soo baxo yiri qofkii yiraahda nabigu waa dhintay surkan ka jaraya wax la doodana lama arko markaas uu fariiso Sayyid Umar waa fariisadii markuu ogaaday inuu safariisan khudbadii iska bilowday sida Abu Bakar wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imata aw qutila ghalabtum ala aqabikum ilaahi rasuulkiis ma ahan buu yiri rasuul ilaahi soo diray ma ahan wax kala ma ahan rusushii ka horeeyana waa tagtay hadii la oofsado يا عمل الدين من نغنى إنسان مايا وين إسلام المدينة أتكس بناتان بير وحي دهشة هي ورير بيهيد ضدك إسلام كهذا مقبته بيهيد واحد داوي سيد أبو بكر بالداوي رضي الله عنه وأرضاه مركز سيد عمر واسود وافريست وادم بقى لو ويديو waxa la yiri markii horeba waa diiday inaad fariisatay maxaa u fariisatay marka aayada oo akhriyay sida Abu Bakar aayadan ugu soo dhacsay sanay buu yiri waxaan ba mooday inay markaas soo dagoto marka nabiga in la oofsanayo ilaahay wuu sheegay wuxuu isku duwayay intuu noolaa wixii dhaxli lahaa oo bacdigii dhaqmi lahaa oo diinka ku dhaqmi lahaa isku duwayay wuxuu isku la duway Sayyid Abu Bakar xanuunku markuu hayo wuxuu arkay salaadii ayako intay istaagan dukanayo oo salaada ka bixinayo markaas uu ilaahay uga mahadnaqay haddii salaadii sidaan u oogantay yaani geeridaydu waa dhab markaan waana la tusiyay in la oofsanayo hadda ambiyada la iska ma oofsan jirin hal mid oo fajaa u dhinta kuma jirin فجأة وحالة يرادا موت كضمير كوكالة المر دلف إسكي يرادا ضدك مؤمنين تانا راحوا وياها فجأة قال لنا عقاب وياها مؤمنين توالوا راح إياها سكرات قالوا قد فيها لكن كوا حوحن كائنو ستوبة كيرين دراديد أقب لغا سيها المر إلا حوغا هدوحن حانون صدوا على غيابا إنو حوغا توبة كيانو نقضو marka waxa kam looga siinayaa fajow dhimanaya ambiyada mid kasta waxa la tusi jiray waqtiga uu dhimanaya waa la tusi waa la daalacsiinay maqaamka jannada uu ku leeyahay waa la daalacsiinay ahad nafta laga qaada asagoo kaanaya ma ku jirin marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u dooray rag iyo gabdho inay la saaxiibaan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam إلى قيام الساعة كوي لا صاحبي كوي لا سي صاحبي كوي لا سي صاحبي قلب قلي وغاريدي دحل كاسي إلى قيام واسعونيا إلى قيام أمدي سوى استبهيدا ساسي سو دبهيدا أنبياء كلا لكن واقع رسول كلا واقع مركز النبي الأوصل مدى لقى سو دبا ساري جري مركز أمد أنبياء ساس سو دبا جوكتي لكن رسول كان وح رسوله كما دنبيان ورسالة لسينيو maalinta jumcada waa martiqaad rabbaani oo ummadda lagu martiqaado nabiga lagu martiqaado calayhi salaatu wasalaam marka aan badino salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam aan badino
digriga ilaahay si saacatul ijaabada aan u waafaqno adoo dharkaagu daahir kuu yahay jirkaagu daahir kuu yahay waxun oo dhan daahir ka ah ilaahay daacadiisa ku jira saacaddaasi ha ku soo marto marka haddaa saacaddaa la kulanto adduun iyo aakhiro taamaha ilaahay ku siiyey adduun iyo aakhiro taamaha ilaahay ku siiyey saacatul ijaabadaas ilaahay hana waafajiyo ridihiisa iyo raxmaddiisa ilaahay hana siiyo dambi dhaaf iyo makfiro ilaahay hana siiyo cidqi iyo caynu raxma ilaahay hana siiyo cibaado suuban ilaahay hana siiyo camalkeenna maqbuul ilaahay ha ka dhigo cumrigeenna cibaadadiisa ilaahay ha ku qurxiyo calafkeenna waasa xalaala ilaahay ha ka dhigo caaqibatul umuur ilaahay ha noo hagaajiyo cadaabkii ilaahay naga xoreeyo cadowgeenna dhibkiisa ilaahay naga kaafiyo umuuraheenna ilaahay ha noo sakhiro cirka madar khayr qabo macal barakaa oo midraar oo sariicoon ku cibaadaysana ilaahay naga siiyo midaan ku daacaysana ilaahay naga siiyo midaan ku kibirno oo ku qooqno ilaahay kuma su'aalan midaan ku daacaysana ilaahu na sii midaan kuugu dhowaanno ilaahu na sii mid cabsigaaga nagu rida ilaahu na sii ilaahu midaan kuugu daacaysana na sii ilaahu dhibaataadka dhacdhacaya dhinac naga mari xifdigiisa iyo ximaayadiisa ilaahay hana geliyo xabadkeenna xigmadiisa ilaahay ha ka buuxiyo aasidka dhibkiisa ilaahay naga kaafiyo اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح